kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada xalqadda labaad ee bandhiga qaran kaasi inuu diiradda ku saarno dowlad wanaagga dib u heshiisiinta daryeelka bulshada waxbarashada dhaqaalaha deganaanshaha iyo nabadda bandhigan oo aad ka daawataan telefishinka STN ayaynu ku martiqaadnaa mas-uuliyiin uu quseeyo hadba mawduuca aynu ka doodayno guulo la taaban karo ayay dowladda Soomaaliya ka soo hoysay xiriirka caalamka khilaafaadiyadii Soomaaliya ay ku milmi jirtay ayaynu meel dhexe iska taagnay sida ismariwaaga ka jira wadamada khaliijka ee lagu goodoomiyay Qatar habka furfurnaanta leh ay loo dhaqmayaan dowladaha adduunka xiriirka kala dhaxeeya dowladaha dariska oo ay ku nool yihiin Soomaali ganacsi ku leh ayaa astaanta guulaha la gaaray kaalinta nabadda ee geeska Afrika iyo xiriirka kala dhaxeeya wadamada dariska sida Ethiopia, Kenya, Eritrea ayaa mudan in lagu amaano dowladda Soomaaliya dhibaatooyinka laga gudbay waxaa ka mid ah in dowladaha dariska ay xiriir toos ah la sameyn jireen dowlad goboleedyada taasina laga gudbay oo hadda waxay u soo maraan dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaase dhinaca kale jira shaki dad badan ay ka muujinayaan haddii ay dowladda Soomaaliya u muuqato mid u jilicsan dowladaha qaar oo ay la galayso heshiisyo u baahan kambaaraandeg si kastaba horumarro ayay dowladda Soomaaliya ka soo hoysay xiriirka caalamka waase marka laga eego docda wanaagsan haddaba hanaanka ay dowladda Soomaaliya u wajahayso xiriirka caalamka maxaa ka qaldan waxaan goordhow idiin soo gudbin doonaa wareysi aynu la yeelanay Dr. Faarax Cabdikariin oo ah falanqeeye xiriirka caalamka oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya arrimaha gobolka balse marka hore aan idiin soo gudbino waxyaabaha ku jira bandhiga aad bedel oo ku qanacsanahay waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynayaa xiriirka cusub ee la yeelanayso Soomaaliya wadamada dariska waan soo dhaweynayaa runtii waxay horumar u tahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah jiilka markaas cusub oo soo kacaya isbedelna ku imaan kara dhanka siyaasadda iyo dhan walba waan soo dhaweynaynaa waan u hambalyeeynaa dowladda federaalka Soomaaliya xiriirka ay la sameynayso dowladaha kale kuwa aan jaarka nahay kuwa naga fogba waa arin wanaagsan dowladdu nidaamyo kala duwan ayay martaa marka waxaan ka codsan lahaa wixii siyaasadeed maadaama dalka uu yahay mid soo korayo in qaab dhaxdhaxaad ah loo wajaho wixii kale oo wada tashina u baahan Soomaalidu way garanaysaa cidda wax u qabatay iyo cidda kale marka dowladda ay leeshiinayso iyo dowladda kalena waxa rajaynayaa in iyadu qudheeduba ay ka micna fiican tahay oo ay dareemayso waxay ila tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya qaab bay u dhisan tahay ay xiriirada caalamka u samayso go'aanka gaaristana iyada iskale xukuumadda markaa joogtana iyada laga rabaa inay cidda ay xiriir la sameynayso ay go'aamiso iyo cidda aysan la sameynaynin annaga muwaadiniin ahaan mararka qaar meelaha ay xiriirada la samayso waa ku taageeri karnaa mararka qaarna waan ka biyadiidi karnaa laakiin masaaliixdu waxa ay tegi doontaa meelaha ummadda looga arrimiyo oo galayaasha talada dalku ay ka go'do ayay finalka ama ugu dambeyn tegi doontaa waa qaar ka mid ah dadweynaha oo aragtidooda nala wadaagay sidoo kale bandhiga maanta waxaynu idinku haynaa Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada xiriirkooda dibaddu uusan aad u deganayn oo isbedbedel badan iyo maaragtay caqabado badan ay soo wajahaan taasoo marka horseeday dhibaatooyin badan iyo guuldarrooyin waxyaalo la oran karo welina ay maaragtay aysan saxanayn xiriirka Soomaaliya oo beesha caalamka ay la leedahay ha noqoto ka dowlad ahaan ama ha noqoto urur caalamiya ama ha noqoto guud ahaan siyaasadda lagu wajahayo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya waxaad moodaa sidii la rabay inuusan maaragtay isu raacsanayn kaasi waxa uu ahaa Dr. Faarax Cabdikariin oo maanta marti noogu ah bandhiga balse aan ku bilaabo
qaar ka mid ah dadweynaha oo aragtidoodana la wadaagay taa oo aynu weydiinay ma ku raacsan tahay habka dowladda Soomaaliya ee xiriirka caalamka ula yeelanayso waana kuwan dadweynaha oo aragtidooda nala wadaagay magacaygu waa Nisa Axmed Yuusuf aad iyo aad bedel oo ku qanacsanahay waana ku faraxsanahay waana soo dhaweynayaa xiriirka cusub ee la yeelanayso Soomaaliya wadamada dariska ah waana soo dhaweynayaa runtii waxay horumar u tahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah jiilka markaas cusub oo soo kacaya isbedelna ku imaan kara dhanka siyaasadda iyo dhan walba waana soo dhaweynaynaa waana u hambalyeynaya dawladda federaalka Soomaaliya magacayga Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Khiyaar waxay ila tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya qaab bay u dhisan tahay ay xiriirada caalamka u samayso go'aanka gaaristana iyada iskale xukuumadda markaa joogtana iyada laga rabaa inay ay cidda ay xiriir la sameynayso ay go'aamiso iyo cidda aysan la sameynaynin annaga muwaadiniin ahaan mararka qaar meelaha ay xiriirada la sameyso waa ku taageeri karnaa mararka qaarna waan ka biyadiidi karnaa laakiin masaaliixdu waxa ay tegi doontaa meelaha ummadda looga arrimiyo oo galayaasha talada dalku ay ka go'do ayay finalka ama ugu dambeyn tagi doontaa laakiin anigu ilaa hadda dawladdu sida ay wax u wado waxay ila muuqataa qaab wanaagsan inta badan xiriir lama sameynaynin waayadii dambe marka in xiriir la sameeyo waa wax wanaagsan marka wax la sameynayana khaladaad waa ka imaanayaan waxay ila tahay khaladaadka ay dawladdan sameysana dawladaha xiga inay sixi doonaan oo lama dhigi doono dawladdan khalad la'aan bay wax sameyn doontaa waxna way ka khaldamayaan waxna way sameynaysaa laakiin waa muhiim in xiriir la sameeyo ilaa hadda xiriirada socdaana waxay u muuqdaan kuwo qaarna la taageeray qaarna lagu kala ra'yi duwanaaday laakiin waa wax wanaagsan in xiriir la sameeyo iigu waa Iilaadan Maxamed Degane ku nool Kismaayo xaqiiqatan dawladda federaalka ee Soomaaliya waa dawlad markaas qaab siyaasadeedsan u horumarsan hadda waxaan ka rajaynaynaa waxqabad fara badan haddaan u soo noqdo su'aashaada xiriirka ay la sameynayso dawladaha kale kuwa aan jaarka nahay kuwa naga fogba waa arrin wanaagsan dawladdu nidaamyo kala duwan ayay martaa marka waxaan ka codsan lahaa wixii siyaasadeed maadaama dalku uu yahay mid soo korayo in qaab dhexdhexaad ah loo wajaho wixii kale oo wada tashina u baahan Soomaalidu way garanaysaa cidda wax u qabatay iyo cidda kale marka dawladda ay la heshiinayso iyo dawladda kalena waxaan rajaynayaa in iyadu qudheeduba ay ka micna fiican tahay oo ay dareemayso dawladdu waxay leedahay madaxweyne iyo xubno kala duwan marka waxaan leeyahay xiriirada dawladaha kale aad la sameynaysaan ha ahaado mid aayaha dambe ee Soomaaliya aan dhib u keenin aad baan kaga mahadcelinayaa barnaamijkan iyo waliba weydiinta aragti aruurinta ku aadan shacabka Soomaaliya sida ay u arkaan hab maamulka xiriirka caalamiga ee dawladda Soomaaliya la yeelanayso wadamada kale ee dibadda runtii waxaa jira in dawladda Soomaaliya iyo waliba kuwa maamul goboleedyadu ay dhowr mar hore shirar dibadda oo international ay kula yeesheen wadamada dibadda iyadoona looga tashanayay aayaha Soomaaliya iyo waliba habka loo maamuli lahaa runtii taasi kadib waxaa imaaday in dawladda Soomaaliya ay sameysay waxyaabo markaasi ku aadan in arrimaha qaarijka dibadda ama siyaasadda dibadda iyadoo isku gaar yeeshay runtii waa wax aad looga xumaado wadanku waxa uu leeyahay hanaan federaal oo markaas maamul goboleedyo dhowr ay ka jiraan marka maadaama uu jiro in xiriir caalami la sameynayo inay ka qayb geliso mid aad u muhiim ah runtii midaasi in kaligeeda ay wadamada markaasi la yeelato xiriir gooni ah ama maamulka waa mid aan soo dhaweynin haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed maadaama waxa laga tashanaya uu yahay aayaha qarankeena Soomaaliya runtii waxa jiray in dhawaan dawladda federaalka madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu markaasi tagay dalka Eritrea la soo yeeshay madaxda geeska Afrika gaar ahaan madaxda dalalka Eritrea iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia oo inta badan
maamulka wadankaasi uu awoodda sare leeyahay ra-iisul wasaaraha waxaana uu la soo saxiixday heshiisyo ugu dambeyn ay sheegeen warbaahinada ka soo baxa gudaha dalka in Afrika ama bariga Afrika uu yeelan doono hal madaxweyne oo kaliya taasina ay ka dhigayso in ayihii aan laga qayb gelin shacabka Soomaaliyeed iyo waliba madaxda maamul goboleedyada haddii aan shacabka Soomaaliyeedna arintaas waxaan u aragnaa mid aan wanaagsaneyn mana soo dhaweynayno magacayga waa Maxamed Qaasim Cali runtii su'aasha ay weydiisay dawladda Soomaaliya xiriirada caalamiga ay yeelanayso ama sida dawladaha caalamka ay oo la xiriirayso ama xiriir oo la leedahay sidee baad u aragtaa ayay su'aasha dabcan marka hore waan u mahad celinayaa ama aad baan ugu mahad celinayaa bahda Star Media Group barnaamijka dadaalka ugu jirto sida dadka ay oga dhaadhicin lahayd waxyaabo badan oo ummaddu ay u baahan tahay inay fahmaan haddii su'aasha jawaabteeda aan u soo laabto waa ku taageersanahay waa sax dawladda Soomaaliya maadaama ay tahay dawladda matasho guud ahaanba geyiga Soomaaliyeed waxay xaq u leedahay in ay xiriirada caalamiga go'aanka gaaristeeda iyadoo ay yeelato isla markaasina dawladaha caalamka oo ay ka yihiin kuwa dariska sidii xiriir wanaagsan ay oola yeelan lahayd danaha ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ee mas'uulka ka tahayna ay ugu sameyn lahayd xiriir wanaagsan oo dunida inteeda kale aan la wadaagno tusaalayaasha ugu wanaagsan ayaa wadamada dariska sida Kenya iyo Ethiopia oo kale iyo Djibouti in ay dhibaatooyinka mararka qaarkood ay dhici jireen in dhanka socdaalka oo kale dhibaatooyin mararka qaarkood ay ka dhici jireen laakiin muddooyinka ugu dambeysay waxaad moodaa arrimaha dhinaca socdaalka oo kale sidii xal looga gaari lahaa in ay dawladdu ay raadinaysay oo qaar ka mid ah dalalka sida dalka Ethiopia oo kale awal aad u adkaa la ii sheegay ama la xaqiijiyay in hadda la fududeeyay gelitaankii iyo sidoo kale socdaalkii dalka oo xaggii baasaboorkii iyo sharciyada loo baahan yahay qofka dalku galka awal ay u adkayd waxaan leeyahay way ku saxan tahay waana arrin fiican oo haddii aan nahay shacabka Soomaaliyeed aan si weyn u soo dhaweynayno in xiriirada dhanka caalamka ay si weyn isaga adkayso maadaama waxa loo shaqeynayo shacabka Soomaaliyeed ay yihiin innaguna shacabka Soomaaliyeed aan ka mid nahay waxaan soo dhaweynaynaa tilaabo walba oo dawladdu ay sameynayso ku saabsan arrimaha aan xiriirka wanaagsan ee la yeelanayso dawladaha caalamka oo ay ugu sokeeyaan kuwa dariska aynu nahay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka oo nala wadaagay aragtidooda ana daawaday aragtidaada waad nala wadaagi kartaa oo waxaad ka soo jawaabaysaa Soomaaliya ma u diyaarsan tahay inay heshiisyo caalami ah gasho waxaadna ku soo diri kartaa ra'yigaaga ama aragtidaada 411 qeybaha dambe ayaan aqrin doonaa balse intaan u gelin markan ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aynu la yeelanay Dr. Faarax Cabdikariin oo ka faalooda xiriirka caalamiga oo falanqeeya xiriirka caalamka kana faalooda arrimaha gobolka kulan wacan daawadayaal magacaygu waa Ismaaciil Cabdi Aadan waxaan kaaga mahad celinayaa ugu horeyn inaad naga aqbasho waraysigan waxaan nala wadaagtaa magacaaga iyo waliba halkaad ka socoto bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Faarax Cabdikariin Xirsi waxaan ahay bara jaamacadeed kana falanqooda arrimo badan oo isugu jira dunida maartay qaybaha kala duwan siiba caalamul islaami dhan walba laga eego dhanka arrimaha siyaasadda arrimaha maartay qawaaniinta shuruucda caalamiga arrimaha dhaqanka arrimo noocaas oo maartay kala duwan ayaan xoogaa diiradda saaraa waa mahadsan tahay Faarax mar kalena waan kaaga mahad celinayaa ka soo qaybgalka barnaamijkan waxaynu gudageli doonaa su'aalaheena maxaa lagu fasiri karaa xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya ee haatan run ahaantii xiriirka caalamiga ee Soomaaliya taariikhiyan Soomaaliya xiriirkeedu wajiyo kala duwan iyo duruufo kala duwan iyo maartay xaalado kala duwan ayuu soo maray Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada xiriirkooda dibaddu uusan aad u deganayn oo isbedbedel badan iyo maartay caqabado badan ay soo wajahaan taasoo marka horseeday dhibaatooyin badan iyo guuldarrooyin iyo waxyaalo la oran karo welina ay maartay aysan saxanayn xiriirka Soomaaliya oo beesha caalamka ay la leedahay ha noqoto ka dawlad ahaan ama ha noqoto urur caalami ah ama ha noqoto guud ahaan siyaasadda lagu wajahayo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya
waxaad moodaa sidii la rabay inuusan maaragtay isu raacsaneen, taasuna ay ku soo noqonayso oo dib uga soo laabanayso xaalka gudaha qaybihiisa kala duwan, ama dhaqaale ha noqoto, ama siyaasad ha noqoto, ama xasilooni ha noqote. waa tahay tallaabooyinka la qaadayo ma ku socdaan habkii saxda ahaa? run ahaantii siyaasadda Soomaaliya guud ahaan siyaasadaha dowladuhu ay leeyihiin waxaa lagu beesgareeyaa maaragtay maraakiis iyo halbeegyo iyo habraacyo loo sameeyo. sida badan qofka go-aanka qaadanaya wuxuu u baahan yahay intuusan go-aanka qaadanin yacni meelo kala duwan oo soo maaragtay siiya xog badan siiya si uu markaas maaragtay go-aanka saxda u qaato. marka nasiib darro waxaa is leedahay waddankeenu ama siyaasiyiinta ama dadka go-aanka qaata Soomaaliya meelihii noocaas ahaa oo siin lahaa xogta muhiimka siin lahaa ama cilmi baarista u samayn lahaa uma diyaarsana, taasoo marka keenaysa go-aan qaadashada iyo xiriirka caalamiga sida loo wajahayo inay noqoto si maaragtay aan israacsaneyn, qaabab kala duwanna loo galo, maaragtay dhibaatooyin badanna lagala kulmo habka xiriirka caalamiga loo wajahayo. Soomaaliya ma u diyaarsan tahay inay xiriirka caalamka la falgasho? guud ahaan horta Soomaaliya waa dowlad madax bannaan. dowladda madax bannaanne xaq bay u leedahay ciddii rabto inay xiriir la yeelato, maaragtay ciddii rabtona ay xiriirka u jarto ayadoo maaragtay aan ka baxayn qawaaniinta iyo hababka xeerka caalamiga iyo heshiisyada maaragtay loogu talagalay tacaamulka diblomaasiga. marka saas ayadoo ah Soomaaliya xaq u leedahay ayaa haddana habka go-aanka loo qaadanayo waxaad moodaa weli in maaragtay sidii la rabay uusan isu raacsaneen. dowladaha la tacaamulaya laftooduna maaragtay ay Soomaaliya xaaladeeda ay kor kala socdaan ayagoo marka ka faa'iideysanaya go-aanka jilicsan iyo go-aan qaadashada ay israacsaneen. laga yaabo markaas inay maaragtay habab aan habbooneyn oo sharciga khilaafsan ay kula dhaqmaan. waxyaalaha Soomaaliya si dhaawacaya waxaa ka mid ah lama daraaseeyo ama cid daraasaysa ma jirto xeerarka caalamiga sida maaragtay calaaqaadka ama arrimaha annaga noqoseeya sidii loo wajihi lahaa. marka waxaad dareemaysaa tusaale ahaan wadamada qaar aan ka soo qaadno sanado ka hor 5 sano 10 sano ka hor in dowladaha derisku markay Soomaaliya fargelinta ku sameynayaan in ay dhici jirtay inay qodobo xeerarka caalamiga ah ama UN Charter oo kale ay u cuskadaan oo ay dhahaan annagu waxaan Soomaaliya u fargelinaynaa inaan sameynano waxa la yiraahdo nafteenan difaacina. xeerarka caalamiga way ogol yihiin in qofku ama dowladdu ay nafteeda difaaci karto. taas ayaa marka ay ku marmarsoonayeen in ay Soomaaliya gudaheeda soo galaan. laakiin mar walba xiriirka dhanka Soomaaliya oo dabacsanaa wuxuu maartay qaabkii laga hortagi lahaa uma diyaarsaneen oo markaa waxa habboonaan lahayd in la yiraahdo haddii Soomaaliya masalan dhibaatada kaga imaanayso waxaad xaq u leedihiin inaad xuduudihiina ku ekaataan wixii khatar ahna halkaas aad maartay aad ku baajisaan. marka taas waxay daliil u tahay habka loo sameeyo xiriirka caalamiga iyo dowladooyinka iyo meelaha uu ka jilicsan yahay Soomaaliya xiriirka caalamiga qaabtii u wajahayso iyo qaabdooda ula tacaamulayso inuusan ahayn qaab daraasaysan oo qaab cilmiyeysan uusan ahayn. marka saan sheegay guuldarooyin horena waa laga dhaxlay, haddana khaladaadkii waxaad moodaa inay weli lagu socdo ay sii dhici doonaan. waa tahay waxaynu ognahay in dowladaha geeska Afrika sida Ethiopia, Soomaaliya iyo weliba Eritrea ay wada gaareen heshiis 3 geesooda. Soomaaliya heshiiskaasi muxuu uga dhigan yahay mase yahay tallaabo horey loo qaaday? guud ahaan heshiisyo hadda qodobo asaasi ah oo la kala saxeeday ma jiraan, laakiin waxay u badan tahay arrimo maaragtay isfahana. isfahanadaasna ay kow ka yihiin in maaragtay calaaqaadkii la hagaajiyo. calaaqaadka sida ogsoonahay dowladaha geeska Afrika dhammaan calaaqaadkooda ma wanaagsaneyn. dowladda kale ayaa dhibaato kala dhexaysay, waxaana ugu daraa heerka maaragtay Eritrea iyo Ethiopia uu marayo, heerka Soomaaliya iyo Ethiopia uu marayo, heerka Djibouti iyo Eritrea calaaqaadka uu marayo. marka tilaabadan la qaaday waa ujeedada koowaad oo siyaasiga ah waxa weeye in maaragtay culayskii ama kala fogaanshihii ama kala aragti duwanaanshihii hoos loo dhigo. inkastoo asbaabuhu ay jiraan oo isbeddelka Ethiopia ka dhacay uu jiro, culayska gudahooda uu jiro, baahida Soomaaliya uu qabto maaragtay in calaaqaad darisku ay wanaagaan ay jirto. Eritrea lafteedu go'doon ku jirtay ay meesha xaaladeedu taallo. marka waxaad moodaa in hab la isugu baahan yahay. ilaa haddana waxaa noo muuqata qaab niyad wanaaga inuu ku jiro heshiiskaasu. wixii marka hadda qarsoon dib ka soo bixi doonaan
waana mar walba wanaagsan tahay in loo toghayo ma jiri karaan waxyaalo qarsoon oo daahsoon oo heshiisyadaas ku jira in loo toghayo way habboon tahay laakiin waxaa isku waafaqsan yahay dowladuhu Soomaaliya ama Ethiopia ama Djibouti ama Eritrea dhammaan inay xaalado adag oo xaalado kala guur ay marayaan dhammaantoodna ay u baahan yihiin inay xiriirka ay qaboojiyaan oo si u ahaan jiray ay ka soo dejiyaan galaangalka dowladaha shisheeye ee waddanka ma yahay mid ku jaango-an duruufta dalka Soomaaliya run ahaantii waa sax oo galaangalka dowladaha shisheeye ay sameynayaan iyo waaqica Soomaaliya yaalla waxaad moodaa inay iskaabayaan oo isbiirsanayaan Soomaaliya saan la soconno burbur baahsan ayaa waddanka ka dhacay waxaa kaloo dhacay dowladihii waddanka qayb ka mid ah inay ku dhawaaqday inay gooday waxaa soo baxay maamul goboleedyo ilaa xaddin ma nidaamka federaalka inay yihiin sheeganaya laakiin nidaam ka sii fog oo confederation oo kale ah oo dowladda dhexe aysan tabar lahayn ayagu ay leeyihiin maaragtay awooddi leeyihiin u dhaqmaya marka arrimahaasoo dhan ayaa waxay saamaxayaan dowladaha shisheeye in maaragtay ay ku adkaato habkii Soomaaliya ay la tacaamul lahaayeen adduunkana waxaa ka jira tartan dhaqaale iyo tartan maaragtay siyaasadeed iyo tartamo maaragtay juqraafi ahna marka arrimahaasoo dhan waxay keeneen in ay maaragtay galaangalkii dowladaha shisheeye uu weji yeesho dowladdii dhexana ayadoo xaaladdu la wada ogsoon yahay in dowladahaasu ay noqdaan xaalkoodu xaal ah haddii aniga siyaasadaadu isla keeni weyno oo isla jaanqaadi weyno siyaasad negative oo cagsi ayay noqonaysaa waxay noqonaysaa inaan adiga dhibaato iyo maaragtay qalaanqalkaaga aan ka shaqeeyo marka mar walba faragelinta adduunka waa la isku hayaa wadamada waaweyn waxaad mar walba maqlaysaa la socotaa in waxaa la qabtay dad jawaasiisa oo waddanka sirtiisa gudbinayay waxaa la qabtay dad maaragtay meelo kale laga soo abaabulayay marka faragelinta adduunku way jirtaa laakiin sida lasaka caabin ogyahay oo loogu birdhiga ogyahay ayaa lagu kala duwan yahay taas waxay ka mid yihiin waxaa la oran karaa damaanaadka siyaasadda Soomaaliya oo ah dowladihii faragelinta toosa ku sameyn lahaa inay ilaa xaddin ma ay ka maagtaan ayagoo ka baqaya in maaragtay warbixintooda iyo tilaabooyinkooda banaanka la soo dhigo waa tahay marka maxaa sababay in Soomaaliya arrimahaasi oo dhan ay u jilicsanaato run ahaantii arrimahaas hore oo dhacdooyinkan soo marnay taariikhiina Soomaaliya xilligii yani xataa dowladihii hore ay jireen mar walba habka ay u wajahaan xiriirka caalamiga ah ma wanaagsaneyn sababta aan ka dhawaajiyo ahayd maaragtay qaabta go-aan qaadashada iyo hay-adaha taageeri lahaa go-aan qaadashada oo meesha ka maqan iyo dadkii kawaadirtahaa oo dowladda ama siyaasiyadda ka gacan siin lahaa habka go-aanka loo qaadan lahaa oo aan la diyaarin khubradii noocyada kala duwanaha welina waxaad moodaa ilaa sidii in lagu socdo macnaheedu ma ahan Soomaaliya ma joogaan dad wax fahansan ama siyaasad fahansan ama arrimo kale fahansan laakiin abaabulkii iyo isku duwiddii iyo kala qoondayntii waajibaadkoodii ayaad moodaa inuu meesha ka maqan yahay taasna marka haddii dadkii aan loo maaragtay qoondayn ama lagu jihaynin shaqadii u taallay oo uu qaban lahaa waxaad moodaa doorkii inuu maqnaanayo dadkii haba joogaan laakiin shaqadii inay bannaan tahay ayaad moodaysaa waa tahay dhinaca xiriirada muhiim miyaa in xiriir lala yeesho wadamada caalamka oo dhan run ahaantii xiriirka caalamigu aad buu u khatar badan yahay aad buuna muhiim u yahay dowladuhu marmar qaar waxay leeyihiin maslaxadaasuna waxaa dhici karta maslaxad waxaa leeyahay maslaxad ku dilisa oo carabi lagu yihahdo maslaxa qaatila maslaxad yacni adiga aan waxba kuu reebin marka saa darteed waxay u baahan yihiin taxadar iyo foojignaan aad iyo aad u weyn waxaa kaloo loo baahan yahay dhinacyada xiriirka laga sameynayo in la iska xadido oo masalan dhinacyada siyaasadda iyo dhinacyada amniga la yareeyo oo dhinacyo maaragtay dhaqaale ah iyo dhinacyo maaragtay ijtimaaciya ay qaab noocaasa saqaafiya inuu u bato ayaa wanaagsan waxaad ogsoon tahay waxaan leeyahay treatiska ama maaragtay mucaahadaadka caalamiga iyo mucaahadaadka ama maaragtay shirkadaadka waaweyn lala galo sida kuwa shidaalka baara iyo kuwa dekedaha maamula iyo kuwa eerbarada maamula heshiisyadooda waa heshiisyo khatar weeye oo waddanka lagu qabsanayo waa shirkad khibrad badan iyo dhaqaale badan u leh waxyaalaha maaragtay ay sameynayaan cagsi marka anaga Soomaaliyana aynan haysan khibradaas iyo diyaargarowgaas taa marka waxay keeni kartaa in lagu dabo oo daban lagu rido ayadoo lagu adeegsanayo maaragtay xiriirka caalamiga dowlado dhisan oo burbur uusan gaarin ayaa dabanka ku dhacay saad ogsoon tahay shirkadda DP World ama shirkadda dekedaha caalamiga ee Dubai iyo dowladda Djibouti dekedii ay kala saxiixdeen inay isla maamulaan waa ogaad wixii ka dhacay taasoo dowladda Djibouti lafteeda looga helay markii maxkamadda la isla tegay
Soomaaliya arrimahaas arrimo ka khatarsan ayay waajahaysaa haddii si taxadar leh oo munaasaba aan loo waajihin xiriirka caalamiga. waxaan lagu waayi karaa waxa laga rabay wax ka weyn ayaa lagu waayi karaa oo dhul iyo bad iyo biri iyo waxyaalo badan ayaa dhici karta in lagu waayo haddaan si taxadar ku jiro aan loo waajihin macnaha xiriirka caalamiga. waa tahay imaaraadka iyo weliba shirkadda imaaraadka ee DP World iyo Ethiopia oo dhinaca iyo Somaliland heshiis ayay wada galeen oo ku aadan dekedda Berbera iyo in imaaraadku uu saldhig ka sameysanayo Berbera. tallaabadaasi miyay tahay mid qurxan? run ahaantii waa arrimaha loo baahan yahay in si taxadar leh loo waajaho markay xaaladdu halkaa marayso kale oo shirkad waaweyn iyo dowladda deriska iyo arrimo noocaasa markii ay ku lug yeeshaan arrintii dowladda Soomaaliya way kaliya u furan waxa weeye inay sharciga caalamiga ah ay gabaad ka dhigato oo qabsato. sharciga caalamigana wuxuu leeyahay dowlad madax bannaan maaragtay dhulkeedii iyo shacabkeedii wax maaragtay cidna lama maamuli karto, cidna ma faragelin karto, cidna maaragtay ma soo tallaabsan karto ayadoo aan muwaafaqo ka haysan oo aan soo marin dowladdii dalkaas maamuleysay. marka halkaas ayaa Soomaaliya uga furan tahay inay marba ku mintido. Soomaaliya waa hal dal waxa weeye cid usoo tallaabsan karta ma jirto. haddii ay dhacdo in lagu soo xadgudub ah oo in arrintii hab qaanuuni loo maro oo maxkamadda loo maro aad bay uga taxadariyaan, xasaasi ayay u arkayaan. haddii aad adigu dabinka ugu soo dhicin meesha adoo taagan aad u sheegto inaad adigu ka sidato ood ka leedahay dawga ka leedahay waxaa laga yaabaa in halkaas ay ku adkaystaan. laakiin haddii taa la mari waayo oo lagu dhex dhaco heshiiskii oo maaragtay yani qaab aan habbooneyn gudaha loogu galo waxaa dhici karta in hadhow meelaad ka noqoto aad gaari weydo. haddii dacwad noqotona ama wax lamid ay noqotone in adiga lagaa gar helo oo laguga soo cadeeyo in adigu arrinta ku lug yeelatay hadallo hore iyo heshiisyo hore aad ka muujisay. marka weyga u bannaa Soomaaliya waxa weeye inay marna ay soo istaagto inay ka tanaasulin ayadoo cuskanaysa maaragtay waxyaalaha ka qabaan xeerarka caalamiga iyo UN Charter iyo maaragtay qaanuunka dawliga halkaas inay ka istaagto ayaa u wanaagsan. akhiiranna halkaas ay ku guuleysanaysaa. tallaabada imaaraadka iyo weliba iyo sidoo kale Ethiopia miyaa lagu tilmaami karaa mid fargelin ah? run ahaantii laba dhinac waa la oran karaa. mar arrinta Berbera ay maaragtay heshiiska galayaan waxay horta la xiriirtaa nidaamkii hore oo ra-iisul wasaaraha cusub Ethiopia ka horreeyey ayaa qorshahaas uu la xiriiraa. imaaraadka laftiisu siyaasadiisu waxaad moodaa inay hadba weji yeelanayso. laakiin waxaa muhiimadu tahay nidaamka cusub Ethiopia arrintaas in lagala xaajoodo oo maaragtay dhan laga tuso. welina waxaa dhici karta heshiisyo kale iyo maaragtay istixaalufaysi ku xiriira khilaafaadka khaliijka oo Qatar iyo Sacuudi oo kale ah weli inuu raadkiisii muuqdo. oo in markii heshiiskan u dhacay Eritrea dowladda Sacuudiga looga yeeray madaxweynayaasha Eritrea iyo wasaarada Ethiopia in imaaraadka looga yeeray si fiican loo soo dhaweeyey in ka bacdi Djibouti loo yeeray. marka Soomaaliyana ka bacdi ay tagtay Eritrea iyo Ethiopia kulli ay shir uga qayb gashay. marka qaab noocaas oo jiidasho ah noocaas waa la dareemi karaa. laakiin adduunku hal mar calaaqaadku dowladaha la leeyahay hal xarig maaha, waa xarga badan yahay. marka haddii xarig la jaro ama xarig u adkaado waxaa la wanaagsan in xargaha kalena ay sidoo u shaqeeyaan maadaama maslaxadda shacabka iyo danaha kale ay maaragtay mar walba aan laga maarmin. xiriirkii shalay xumaadayna haddii duruuftu isbedesho lasoo nooleyn karo. marka siyaasadda caalamiga ah ma lahan maaragtay isgoyn ama kala tag joogto ah ma lahan, wada joogtaan joogto ah ma lahan. hadba hooska labadiisa gelin sida hadba duruuftu noqoto ayaa loo tacaamulo oo wax lagu maamulaa. heshiisyada caalamiga ah ee Soomaaliya ay galayso muhiimad intee leeg ayay leeyihiin? xilligan Soomaaliya lagu jiro heshiisyada khatartooda iyo faa'iidooda waxaan is leeyahay inay khatartooda ay badan tahay ayaa dhici karta maadaama u diyaargarowgii loo baahnaa iyo maaragtay aaliyaadkii iyo ashkhaastii iyo duruufihii iyo wixii loo baahnaa aan loo haysanin in heshiisyo caalami la galo. waxaan anu ku talin lahaa in maaragtay isfahanno iyo maaragtay qaabab kale in wixii lagu qaabeeyo mar walbana laga fiirsado heshiisyada caalamiga oo lagu degdegayo. saan ogsoonahay xeerka heshiisyada caalamiga Vienna lagu sameeyey wuxuu cadeynayaa heshiisyada yani anagu Soomaaliya markii la joogo waxaan dhahnaa xukuumaddu haddii heshiis soo saxiixdo waa inay baarlamaanka usoo gudbisaa si baarlamaanka u ansixiyo. laakiin arrintaas sax maaha marka loo eego xeerka caalamiga heshiisyada. heshiisyada wuxuu leeyahay xeerkaasu haddii heshiiska gudihiisa ay ku qoran tahay wuxuu ku dhaqangelayaa masalan mas-uulkii dowladda ka socday hadduu saxiixo ayuu dhaqangelayaa hadduu sheegayo saasuu ku ansaxaya. macnaha waxay ka dhigan tahay laisla gaari maayo sometimes ama bacdal axyaan in loo gudbo baarlamaankaagii iyo hay-adaha dowladda in lasoo gaaro laguma simayo. waxaa laga yaabaa xilli hore in heshiiskii qalinka asaartay
ama mas-uulkii dowladda ka socda uu arrintaas saxay inay wixii walba ku dhammaadaan. saa darteed heshiisyada waxaan oran lahaa waa loo baahan yahay, laakiin in aad iyo aad looga fiirsado, maaragtay taxadar wanaagsan laga sameeyo, duruufaha lagu gelayana maaragtay la iska xadido oo ama ha noqoto waqtiga la gelayo ama waqtiga loo qabsanayo ama dhaqaalaha la qabsanayo ama maaragtay dib u eegis iyo wixii in lagu samayn karo. arrimo noocaasa in lagu jaangooyo ayaa tala ahaan ila taanka. xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya iyo weliba gobonimada sidee isula jaan qaadayaan? saan ka dhawaajiyay yani Soomaaliya waa dowlad gobonimo leh, waa dowlad madax bannaan, waa dowlad la ictiraafsan yahay. dhammaan dowlad walbana waxay leedahay gobonimo maaragtay dibadda ah iyo gobonimo gudaha ah. yani gobonimada gudaha waxa weeye dowladdu shacabkeeda iyo dalkeeda sidai doontay u maamuli kartaa, wixii doonto maaragtay qawaaniin iyo nidaam ayay kusoo rogi kartaa. ciidana ma oran karto maxaa saas u yeeshay, maxaa shacabka waxaas ugu maamushay. sidoo kale waxay leedahay gobonimo dibadda ah oo ah ciddii doonto inay xiriir la yeelato, maaragtay ciddii rabtan xiriirka ay u jirto, wax wada qabsi inay yeesho. waxyaalaha maaragtay caalamku uu iska baahisanayo oo dhibaatooyinka iyo gargaarka iyo wixii lamid ah inay xubin firfircoon ka noqoto xaq bay u leedahay. marka taas xaq buux ay u leedahay inay ka mid noqoto beesha caalamka si u tasarufayso, laakiin taa lafteedu kama marna khibradeedii iyo waqtigeedii iyo dadkeedii oo hawshaas qaban lahaa ayaa loo baahan yahay. saa darteed weyga ugu wanaagsan waxa weeye in ay Soomaaliya ay dejiso macnaha xawliga iyo xawaaraha beesha caalamka ay ku dhex socoto oo maaragtay danaheeda khaaska ah ay ilaashato, ay qabsato. ciddii markaa danka gashana dantaas si toos maaragtay ay ula tacaamusho ayadoo maaragtay tabaadul masaalix la yiraahdo oo tusaysa maslaxadda anagu u hayno waddankaas iyo maslaxadda uu noo hayo si ay u kala bedelin karnaa. qaab noocaas ayaa fiican in la waajaho, laakiin in si daarati loo dhex ordo arrin khatarteeda la weeye, arrin aan awooddeeda leenahay, arrin aan khibradeeda leenahay, arrin maaragtay diyaargarowga aan leenahay maahan. waana wixii xilliga dagaalka qaboobaa Soomaaliya ku dhacay dhex orodka siyaasadaha caalamiga oo isdiidan. haddii si aan laga waantoobin oo cashar laga qaadan waxaa dhici karta hayna mar labaad in dhibaato laga bixi waayo ay u sabab yihiin xiriirada dibadda laga sameynayo. xiriirka dibadda oo khaldama oo dhib ka yimaadana waxay kusoo guda noqonaysaa waddan gudihiisa oo ammaan darro iyo dhibaatooyin noocaasa ayay ka abuuri kartaa. waa tahay maxay tahay marka faa'iidooyinka uu waddanku ka helayo haddii uu xoojiyo xiriirada wadamada adduunka? run ahaantii maaragtay sida qofka bani'aadanka caadiga uu ugu baahan yahay xiriir inuu la yeesho mujtamaca intiisa kale oo qof keligiisa noolaan kale uusan u jirin, oo qofku inuu la tacaamulo noloshiisa iyo ijtimaaciyan iyo wax walba uu ugu baahan yahay inuu dadka la tacaamulo, uusan go-doon ahaan karin. dowladduna waa shakhsi qaanuuniya sidoo kale u baahan tahay ayana inay tacaamul samayso oo dowladaha kale iyo maaragtay hay-adaha kale iyo mujtamacaad kale inay tacaamulo yeelato waa arrin loo baahan yahay. laakiin mar walba waa in noqdaan waxa la yihahda wax la daraaseeyey ama wax laga fekeray inay noqdaan habka loola tacaamulayo dowladahaas. haddii marka ay isku noqoto waa la sameeyaa ama waa la booqdaa ama waa la hadlaa ama waa laga qayb galaa keliya hadduu macluum noqdo waxaad moodaa dhibaatooyin waaweyn oo mustaqbalka aan laga baxsan doonin iyo dhibaatooyinkii hore oon cashar laga baranin inay noqon doonto xiriirka caalamiga. saan sheegana waxaa yidhi xiriirka caalamiga haddii uu toosi waayo ama dulduleelin yeesho ama cuyub ay ka yimaadaan waxay ka jaran tahay xiriirka gudaha oo gudaha ayaa dhibkaas soo gudbaya. saa darteed si guduhu u badbaado oo waddanku gudihiisa uu isu haysto waa in si taxadar leh loo xiriyaa xiriirka caalamiga ee habka loo sameynayo. dhinaca heshiisyada haddii aan dib ugu laabano waxaynu ognahay in dowladda Soomaaliya heshiisyo badan ay la gashay dalka Turkiga iyo weliba shirkado kale oo shirkado laga leeyahay dalka Turkiga. heshiisyadaasi oo dhan ma yihiin kuwa loo maray hab sax ah? run ahaantii wadamada habka ay dhaqaalahooda ka horumariyaan waxaa ka mid ah waxaa la yidhaha maalgashiga. maalgashiguna waxaa ka horeeya inuu shuruuc u diyaarsan oo maalgashiga lagu sameeyo ay jirto. waxaa kaloo loo baahan yahay maaragtay haddii maalgashigaasu uu khilaaf ka yimaado oo dadkii maalgashiga sameeyey iyo dowladdu ay isfahmi waayaan in uu jiro maaragtay garsoorkii iyo nidaamkii lagu kala bixi lahaa oo nidaam la isku haleyn karaa. marka waa dhici kartaa doodo waa jireen ah sharikaadka ama waxyaalaha noocaas oo waddanka ka shaqeynaya lama marsiinin xeerka maaragtay maalgashiga shisheeye ee waddanka u yaalla. laakiin lama diidana waa arrin la isku raacsan yahay inay daruuri tahay in maaragtay dhaqaalaha adiga haysato iyo aqoontaada keliya aad waddanka ka horumarin karin ee loo baahan yahay in maaragtay dhaqaalo iyo khibrad iyo maalbaba ay dibadda kaaga yimaadaan si waddanka lagu maalgeliyo. laakiin taasna waxay u baahan tahay mar walba inaysan cagsi noqon oo meeshii wanaag laga rabay oo laga rabay dhaqaale abuur laga rabay oo shaqo abuur laga rabay inaysan arrintaa keenin.
marka waa arrin siyaadiya, waa arrin dowladdu ay go-aan wadan, waa arrin ay awood u leedahay inay sixi karto oo la sixi karo wixii hore u khaldaan dib loo sixi karo. waa arrin mar walba ay awood u leedahay inay ayadu ay ka bixi karto, oran karto maslaxadeedu kuma jirto arrintan. laakiin waxa ayna meesha ka marnayn in maalgashiga shisheeye lagu tartamo adduunka, dalxiiska lagu tartamo, maaragtay calaaqaadka wanaagsan lagu tartamo. marka taasna marka in ayadu la tixgelinayo, haddana dariiqii saxdaha iyo qawaaniinta waddanka lagu beesgarayo ayaa asal ah. waa tahay isqabqabsigii wadamada khaliijka waxaynu ognahay in Soomaaliya uu ku yeeshay galaangal xoogan. maxaa cashar oo laga baran karaa arrimahaas oo dhan? run ahaantii Soomaaliya dhib weyn ayaa ka haysta oo xagga xiriirka caalamiga. Soomaaliya habka ay u fiiriso wadamada khaliijka ka guud ahaan waa hab maaragtay waxaa lagu yidhahdaa gacanta hoose ah, gacanta hoose oo marba ayagu in wax lagu kaalmeeyo ayay u fikiraan. fikirka la raba saxda wuxuu ahaa haddaad fiiriso wadamada khaliijka oo kale, badanaa wadamadooda dhaqaale xoog leh ayaa u yaala oo sanduuqyo iyo akoonna ayaa buuxa. dhammaantoodna waxay ugu talagaleen inay maaragtay maalgashi ku sameeyaan. marka ayaga waxay raadinayaan fursaddii ay ku maalgashan lahaayeen dhaqaalahaas faraha badan. halka Soomaaliyana ay ka fikirayso musaacado in la siiyo, ayaguna waxay ka fikirayaan dhaqaalaha meel ay ku maalgeliyaan. marka fikir noocaas ayaan ka aaminsanahay. arrinta khilaafaadka, arrinta khaliijku runtii waxaa la oran karaa markaan in xoogaa Soomaaliya isqabatay oo maaragtay dhexdhexaadnimo ay ku adkaystay, inkastoo doodo badan jiraan oo dhexdhexaadnimadaas lafteedu war ku jiro. laakiin habka ugu muhiimsan waxaa wanaagsan arrimaha noocaana in dhexdhexaadnimo mabda'iyan dhexdhexaadnimo lagu dhawaaqo. dhexdhexaadnimadu waxay leedahay qodobo oo lacallaba hadda dagaal ma dhicin, laakiin hadday isdagaali lahaayeen markii dagaal jiro kale ayaa waxa la dhexdhexaadka qofka noqonaya waa inuusan labadaas dowladood midna dhul iyo maaragtay quwad iyo midna isugu taageerin, oo aysan dhulkiisa ka duulin, aysan maaragtay badiisa isticmaalin, uusan ciidan ku taageerin, uusan si kale u taageerin. marka hadda dagaal ma dhicin, khilaaf buu ahaa. ayaga hadda laga yaaba in dib isku soo laabtaan. marka waa fikrad fiican bay ahayd, dad ayagu dirisa walaalo ah oo iskhilaafay oo hadda laga yaaba in dib u heshiin doonaan. adigu inaad meel dhex ka istaagto waa arrin yani aad u wanaagsan bay ahayd. laakiin weli waxay u baahan tahay heerka diblomaasiyadda iyo maaragtay tacaamulka arrimaha noocaasa in inta uu kasii xooganaado oo waxyaala maaragtay si lama filaana ayaa maaragtay khataraha caalamiga iyo khilaafaadka caalamiga usoo boodaan. marka qofkii u diyaarsan oo maaragtay si u maarin laha u diyaarsan waa laga yaabaa inuu ka badbaado. laakiin hadda hadday noqoto wixii soo ziyaada si uu iskala tacaamul, waxaa laga yaabaa in dhibkuna iska joogto iska noqdo. maxay yihiin qaar ka mid ah saameynada tuban ee xiriirka caalamiga? xiriirka caalamiga hadba sidii loo dhigo ayuu noqonayaa. laakiin sida hadda xiriirka caalamiga iyo faragelintu waxaad moodaa inay iska rab socdaan. marka xiriirka caalamiga in yani adigu aad si iraadadaada ku jirto oo madax bannaan aad u raadsato ama lagu soo raadsado dariiq saxan lagu soo maro. albaabka sharciga ahna waddanka laga soo galo oo hay-adihiisa maaragtay qaabilsan in lala tacaamulo loo soo maro. arrintaas waa arrin wanaagsan, waxaana ku tusaa waxa la yidhaha niyad wanaag in dowladdaas ay u dan leedahay. laakiin haddii ay noqoto in albaabka laga soo gelin, guriga gadaal laga soo galo oo hay-ado aan sharci ahayn iyo siyaasiyiin aan maaragtay markaas aan u haysan sharciyad maaragtay in lala tacaamulo, arrintaas waa arrin maaragtay ayna wanaagsaneyn. marka hadba marka tacaamulku wajigu ku yimaado ayay noqonaysaa in loola tacaamulo. run ahaantiina saameyn way nagu reebtay xiriirkaas caalamiga oo khaldamay iyo faragelinta dowladuhu maaragtay oo ilaa hadda khilaafaadkan iyo afkaarta iyo maaragtay mabaadida dibadda laga soo dhoofinayo iyo ururada dibadda ku xiran iyo arrimaha noocaas kala waa arrintaas hadda taban oo maaragtay aan sheegino oo maaragtay si toosa waddanka u saameysay. si looga baaqsado faragelinta dowladaha shisheeye, dowladda Soomaaliya maxaa looga baahan yahay? weyga ugu wanaagsan oo faragelinta looga baaqsan karo waxa weeye in aad gudahaaga aad ka dhigto bee-a ama meel aan u sahlanayn in lasoo farageliyo. macnuu waxay ka dhigan tahay in haddii khilaafaad siyaasiya iyo mid ijtimaaciya ay jiraan inaad xaliso. haddii maaragtay cadaalad darro dhaqaale iyo cadaalad darro maaragtay mujtamaciya ay jirto in la xaliyo. in hay-adihii kabastiga u lahaa oo waxaan maareyn lahaa ama amniya ha noqoto ama siyaasiya ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ayagana la abaabulo. in quwadihii ciidankii wixii ayuu la tacaamuli lahaa aad diyaarsato. marka waxaasoo dhan oo la hagaajiyey dowladdii khaarijiga ahayd markay doonayso inay faragelin samayso aad bay ugu adkaanaysaa. waxaan laga yaabaa marka dambe inay u weecato waddada sharciga inay soo marto oo faragelintii ay aragto inay u sabooban maslaxadeena ay isku gaareen. marka weyga ugu wanaagsan waxa weeye in gudaha la hagaajiyo, wax walba ka jira gudaha la hagaajiyo, kabacdina siyaasad dibadda halbeeg wanaagsan oo degan iyo mabaadi cadcad in lagu wajaho iyo hay-ado
dowladdu ay u samaysay oo ayagu ismaareeya iskontaroola isxoojiya iskaaba qaab noocaasa in la abuuro ayaa qayb weyn ka qaadan kara. waa tahay waddankeenu ma gaaray heer uu kala doorto cidda uu la saaxiibayo iyo cidda weli waxaad moodaa in arrintaasu aysan bisleen xilliga kala doorashada oo ma arkaysaa weli uusan Soomaaliya oran karaa qofka saaxiibka ama dowladda saaxiibka iyo dowladda aan saaxiibka ahayn weli inaysan kala saari karin. taasoo marka ay ka dhigan tahay in waxyaalaha markaas dowladdu ay sameynayaan hadallada macaan ama maaragtay waxyaalaha musaacadada ama qaab noocaasa inayna weli ka turjumi karin in la caddeeyo dowladda inay saaxiib tahay iyo maaragtay inay cadow tahay. laakiin mar walba in la hubiyo in la sameeyo halbeeg ama maaragtay tillaabooyin ama qodobo lagu cabiro dowladdanu inay saaxiib tahay iyo inaysan maaragtay saaxiib kula ahayn, ayadoo mar walba meesha caadifadda raba in laga saaro iyo jacaylka iyo nacaybka meesha laga saaro, laakiin wax wada qabsi iyo maaragtay wax la taaban karo in lagu beesgareeyo ayaa asala. laakiin mar walba aysan noqonin maaragtay kanaan hadal wanaagsan iyo kanaan qaab noocaas oo propagando ay fidiyeen oo kale iyo waxyaala noocaasa inaadan ku rumaysanin ayaa wanaagsan. maxaa u diida marka in Soomaaliya ay kala doorato cidda ay xiriirka la sameynayso iyo cidda kale? saan sheegnay Soomaaliya mabda ahaan waa dowlad madax bannaan, waa u bannaan tahay xaq bay u leedahay inay ciddi doonto ay doorato qof kartona ay maaragtay la tacaamusho, laakiin capacity ama quwaddii ama ahliyaddii ay ku kala dooran lahayd ayaa taas afarta ku kooban tahay. ana awood ma u leedahay khibrad iyo ma u leedahay iyo isku duubni inay calaaqaad khaariji iyo dowlad la samaysato. qiimeyn saxa ma samayn kartaa, qiimeyn saxa dowladdaas saaxiibna la ah tan saaxiibna lama aha. takatulaadka waxa la yiraahdaa ama isu tagayada dowladuhu ay isu tagayaan oo goboleedyo ay samaysanayaan inay ka mid noqoto maslaxad ma ku jirtaa mase kuma jirto, inay qayb ka ciyaarto takatulaad kale ma abuuri karnaa oo ma qalqaalin karnaa hal la abuuro isku tagayo kale oo dowladda ay midoobeen waxyaala ku midoobeen ma la abuuri karaa. arrimaha noocaasa ayaa mar walba ku jira, laakiin wax u diidaya mabda'iyan inay calaaqad siyaarto ma jiraan, laakiin sidee u yeelanaysaa calaaqadkaas taas ayaa su-aasha noqonaysa. waa tahay sidee Soomaaliya ku soo ceshan kartaa marka xiriirkii ay la lahayd caalamka? runtii xiriirka in la soo cesho laba dariiq ayay maraysaa. dariiq waa hay-adihii diblomaasiga oo ku shaqada lahaa oo wasaaraddii arrimaha dibadda maaragtay safaaradaheedii safaradii iyo wixii loo baahnaa in noocaas la sameeyo. labo in la sameeyo heshiisyadii halgeesood ama laba geesood ama heshiis jamaaciya in la sameeyo. marka saddexaadna mabda'iyan in dowladdu ayadu ay u aragto ciddii rabta in la tacaamusho iyo sidee wax uga faa'iidaysan kartaa iyo ma arkaysaa maaragtay mar walba si aan xanaf lahayn in loo waajaho. adduunyada ilaa xad waa la isqadariyaa haddii qofku brotokoolaadka caalamiga iyo nidaamka uu raaco, hadduu xataa kaa ra'yi doonaado waa lagu qadariyaa. waxaase daran si aan shaxaysnayn oo maaragtay wanaagsanin dowladdu inay u tacaamusho oo maaragtay diblomaasiyadda ka baxsan. taasa marka dhibaatooyin argosiya iyo dhibaatooyin maaragtay sumcad dil ah iyo waxyaala badan ay uga soo waajihi karaan. marka waxaa fiican procedure loo baahnaa inay diyaariso dadkii qaban lahaana ay u diyaargaroodo mabda'iyan ciddii ay ku qanacdo oo u aragto inay maslaxad ugu jirto inay raacdo ayaa wanaagsan. waa tahay gabagabadii barnaamijka aynu isla soo gaarnay, maxay tahay taladaada? run ahaantii taladeedu waxa weeye mar walba siyaasad degan ayaan oran lahaa. siyaasad degan ayaa loo baahan yahay Soomaaliya oo ma aragtay aan xanaf lahayn, aan dhacdhac badan lahayn, aan dhex orod badan lahayn, maaragtay miisaaman siyaasad xeerinaysa oo akhriyaysa waxyaalaha si u jiraan, waxyaalaha yani xeerarka caalamiga si u shaqeeyaan, xeerarka iyo ururada ganacsiga adduunka si u shaqeeyaan, maaragtay isu imaatiyada maaragtay meelaha la isugu imaanayo qaabka loo isugu yimaado, arrimaha si fiican in loo akhriyo, xafiisyo iyo hay-ado iyo maaragtay jamciyaad loo samaysto, kabacdi siiya cidda go-aanka qaadanaysa go-aanka saxda soo hordhigta. go-aanka saxda dhankaas waa ka yimaada hay-adaha gudaha oo maaragtay cid sirdoon ahaan macluumaad sirdoona soo gudbinaysa oo dowladda hordhigaysana qayb bay ka ciyaartaa. marka waxaan oran lahaa intaan loo boodin xiriirka caalamiga waxyaalihii kuu saamixi lahaa inaad si saxa u qiimeyso oo sida wuxuu ayeen aad u aragto wixii kuu saamixi lahaa waa inay diyaarsan yihiin. haddii aad waxaas haysanin waxay noqonaysaa siyaasad iska nintooxsiya. nintooxsi waxa weeye qofka asagoo keligiis wixii kusoo dhacay inuu iska qaato ayadoo laga yaabo inuu khaldan yahay inuu horey u socdo. marka arrintaas kula talin lahaa arrimaha siba heshiisyada caalamiga aad bay u khatar badan yihiin. ishardiga dowladaha khilaafaadka waa khatar badan yahay. arrimahaas si taxadar leh oo aad u taxadar badan in maaragtay lagula tacaamulo. mar walba oo siyaasadda ay degan tahayna waxaa yaraanaysa faragelinta
haddii aadan maarata dhex ordin siyaasadda caalamiga waxaa yaraanaysa in lagu soo fargeliyo oo xataa lagu xusuusto inaad jirto inaad jirinba xataa lagu shakiyo oo maarata aan lagu mashquulin laakiin haddii maaragtay aad ismoojiso oo khilaafaadka daakhiliga banaanka soo dhigto oo wixii ishaysta aad dhex taagan tahay waxay noqonaysaa in dhibaato xoog halkaas ay kaasoo gaarto awoodooda waa badan tahay military midoo dhaqaale waa xoogan tahay aniguna dowladii baan nahay shacab yar dhaqaale yar marka dhibaatay ku geystaan oo ay ku gaarsiiyaan dhibaato laga kici karo ma ahan hay'ad awooddeeda ay leeyihiin marka talada waxa weeye siyaasad degan ayaa kusoo gabagabeynaya kaasi waxa uu ahaa doctor faarax cabdikariin oo falanqeeya xiriirka caalamka kana faallooda arrimaha gobolka goordhow waxaynu gudageli doonaa aragtida daawadayaasheenna ee ah soomaaliya ma u diyaarsan tahay inay gasho heshiisyo caalami ah balse marka hore aan ku nasanno qadar yar oo dhextaala daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumi ku arag maxaan duca ku aqriyay balaaya xijaab ku daraye daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumi ku arag maxaan duca ku aqriyay balaaya xijaab ku daraye damiirku maxuu yiri si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirku maxuu yiri si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirku maxuu yiri si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirku maxuu yiri si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw dugsi
dadka dugsi u tahay dowladnimo difaac minni madaad u tahay dowladnimo danguud ilaaliyaad u tahay dowladnimo dowladnimo joog dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadii daryeel maatiidad u tahay daryeel maatiidad u tahay dowladnimo jir dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadii daryeel maatiidad u tahay daryeel maatiidad u tahay dowladnimo jir dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadii dintana garabaad u tahay calanka dalaliimaad u tahay calanka dalaliimaad u tahay deegaanka dabiibaad u tahay deegaanka dabiibaad u tahay dowladnimo jir dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadii dintana garabaad u tahay calanka dalaliimaad u tahay calanka dalaliimaad u tahay deegaanka dabiibaad u tahay deegaanka dabiibaad u tahay dowladnimo jir dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadii nabadda dayr baad u tahay nabadda dayr baad u tahay dowladnimo jir dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadii daljira cadaaladaad u tahay daljira cadaaladaad u tahay nabadda dayr baad u tahay nabadda dayr baad u tahay dowladnimo jir dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadii waa hagaag aan ka soo laabanno qadarkaasi dhextaalka ah waxaan markan eegi doonnaa qaar ka mid ah daawadayaasheenna oo aragtidooda nala wadaagay daawadaha ugu horreeya ee fariintiisa noo soo diray waxa uu ku bilaabay magaciisa waxauna ku sheegay nasteexe cabdulaahi oo joogta magaalada muqdisho nasteexo waxay tiri haa runtii dowladda hadda waxay ka baxday kumeel gaar oo waa dowlad rasmi ah waxaana u baahannahay in xiriir ay la samayso caalamka intiisa kale heshiisyada ay gasho dowladda heshiise ay la gasho dowladaha isleedahay faa'iido ayaa ugu jira ayay tiri way maasan tahay nasteexo
oo fariin noo soo dirtay ayay ahayd. daawado kale waxa uu leeyahay asalaamu calaykum, magacaygu waa luul sheekh cali oo ku nool magaalada muqdisho. luul waxay tiri dowladdeenu waxaa la mid ah qof bukaan ah oo daawo qaadanaya, cidda daaweynaysa ama cidda daawada siinaysa oo doctoorka ah waa wadamada maanta ciidamadu ka joogaan Soomaaliya iyo beesha caalamka. marka dowladda ma u diyaarsano inay gasho heshiisyo caalami ah, mana noqonayaan mid miro dhala ama hanaan caafimaad qaba heshiisyadaasi ayay tiri. way maasan tahay daawadahaasi fikirkiisa, waan soo dhaweynayaa daawado kasta oo fariintiisa noo soo diray. daawadahan waxa uu leeyahay asalaamu calaykum bahda STN, magacaygu waa Axmed Aadan oo jooga Baydhabo, Soomaaliya. siyaasad ahaan waan u diyaarsannahay, waayo waxaan nahay dal qaran ah oo madax bannaan oo dhaqaalihiisu kabcayo iyo bulsho xoogan oo u diyaarsan in ay dowladdiisa ama dowladdooda ay hagto tustana wadada toosan ayuu daawadahaasi yiri. waa mahadsan yahay isna. daawadayaasheenna fariinta noo soo diray haddii aan ku sii socdo, waxa uu daawadahan leeyahay ama fariintiisa ku yiri asalaamu calaykum reer STN, waa Raage Xasan oo jooga Beledweyne. waxay u baahan tahay Soomaaliya inay gasho heshiisyo caalami ah. waxaan nahay dal soo kobcayo oo caalamka ka xirnaa wax ka badan 30 sano ayuu daawadahaasi fariintiisa ku yiri. daawadayaasheenna haddii aan ku sii socdo oo fariinta noo soo diray, daawadahan wuxuu leeyahay magacaygu waa Aadan Dheere, waxay u baahan tahay in adduunka ay wax la qaybsato Soomaaliya. waxa uu Aadan yiri waxaan nahay dal soo koraya oo leh mustaqbal fiican, una baahan in caalamka intiisa kale uu la jaan qaado ama uu wax la wadaago. waa mahadsan yahay Aadan. fariimaha haddii aan ku sii socdo, daawadahan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum, run ahaantii Soomaaliya waxa ay maraysaa maanta meel aad u fiican. dunida ayaaba safaaradaha ka furanaya Muqdisho. waxaa socda isbedel dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshada. marka tallaabo wanaagsan ayay tahay in dowladda Soomaaliya ay heshiisyo wanaagsan ay la gasho wadamada adduunka ayuu yiri daawadahaasi. waa uu mahadsan yahay. daawado kale waxa uu leeyahay asalaamu calaykum, waan islaamay bahda STN, magacaygu waa Sikriya oo jooga magaalada Muqdisho, gaar ahaan warta nabadda. Soomaaliya ma ka bixi karto xilligan heshiisyo caalami ah, sababtoo ah weli ma gaarin inaan la jaan qaadno caalamka intiisa kale. anigii wuxuu leeyahay daawadan, anigii ayaaba isfahansaneen, madaxda ayaaba isqabqabsi ka dhammaan la ayuu yiri. marka sidee ayaan wadamada adduunka ula jaan qaadi karnaa? waa mahadsan yahay daawadahaasi. daawado kale waxa uu leeyahay waan idin salaamay bahda STN, magacaygu waa Anis Cadeey oo ku sugan Guraceel, gaar ahaan xaafadda Stireen. su-aashan waa muhiim run ahaantii, annagoo og inaan tilaabadaasi qaadi karno oo ay dowladdeenu oo ay tahay mid u madax bannaan inay heshiisyo caalami ah dunida inteeda kale ee la gasho. haddana anigu waxaan qabaa in tilaabadaasi aysan qaadin dowladda Soomaaliya. waa mahadsan tahay daawadahaasi oo joogta Guraceel lagu magacaabo Anisa Cadeey. daawado kale waxa uu leeyahay asalaamu calaykum, Soomaaliya waa qaran jira. su-aasha ayaaba aniga ila qaldan, waayo waddankeena waxa uu leeyahay dowlad uu caalamka ictiraafsan yahay iyo waa madax ku timid doorasho hufan ayuu daawadahaas yiri. marka Soomaaliya way u diyaarsan tahay inay heshiisyo caalami ah ay gasho ayuu daawadahaasi fariintiisa kusoo gabagabeeyey. qaybihii dambe ayaynu soo gaarnay daawadayaal. daawadaha ugu dambeeya ee fariintiisa noo soo diray haddii aan eego, waxa uu leeyahay asalaamu calaykum reer STN, waa Ruweyde Macalin. Soomaaliya way u baahan tahay, waayo way u diyaarsan tahay inay heshiisyo ay la gasho dunida inteeda kale. taasina ciddii shaki gelinaysa Soomaalinimada ayay cadow ku tahay ayay Ruweydu fariinteeda kusoo gabagabaysay. guud ahaan daawadayaal waxaan intaan kusoo gabagabeynaynaa bandhigeena qaran. waxaan filayaa inaad ka hesheen waxyaabo badan oo idin xiiso geliya. intaan bandhigiisa kale ku kulmi doono, nabadgelyo.